kulanti wacan daawadiil ku soo dhawaado wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo war cusub soo saaray iskana cafiye culimadii isaga uu sheegay inay u gaftay loolan ka dhex bilowday Maareeye iyo Goodax Bare iyo Maareeye oo warqad kulul ugu gacan saaray Goodax Bare Faysal Cali Waraabo oo shaaciye magaca maamulka dowladda federaalka ay ka dhisayso Somaliland kulan qarsoodi ah madaxweyne Farmaajo Muqdisho kula yeeshay xubno cadaan ah dowladda Soomaaliya oo ciidamo u diraysa beelaha ku dagaalamaya muduga iyo Gamaal Guutaale oo qorshe cusub oo aan farxad gelin dowladda federaalka ka wada magaalada Cadaado intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku bilownay loolan xoogan ayaa ka dhex qarxay wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Cabdilaahi Goodax Bare iyo wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyadoo la isku hayo awoodda labada wasaaradood wasiir Maareeye ayaa qoraal uu soo saaray ku gacan saaray waxba kama jiraan ku tilmaamay guddiga waxbarashada dhaqanka iyo sayniska oo isla maanta u dhisay wasiirka waxbarashada Cabdilaahi Goodax Bare qoraalka Maareeye ayaa ku dooday in wasaaradda waxbarashada ay dhisay guddi hal dhinac oo aan cidna kala tashan iyadoo mas'uuliyadihii guddigaasi u dhibtay dad aan ka socon hay'adaha dawladda iyo kuwa bulshada ee xirfad ahaan iyo mas'uuliyad ahaanba doorkii ku lahaa Maareeye ayaa ku dooday in sida ku cad magaca iyo mandate-ka labada wasaaradood wasaaradda warfaafintu ay leedahay mas'uuliyadda guddiga ee dhinacyada warfaafinta iyo dhaqanka maadaama ay maamusho wasaaradda dalka golaha murtida iyo wacyigelinta iyo hobalada iyo abwaaniinta dalka halka wasaaradda waxbarashaduna leedahay mas'uuliyadda waxbarashada iyo hidaha qoraalka ayaa intaasi ku daraya sida uu yiri mandate-ka wasaaradaha ee kala duwan wasaaradda waxbarashada wax shuqul kuma laha dhaqanka wana mas'uuliyad ay leedahay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska sida awgeed ayaa lagu yiri qoraalka Maareeye waxaan cadeynaynaa in guddigaasi ay wasaaradda waxbarashada ku dhawaaqday uu yahay guddi baalmarsan nidaamka loo dhiso guddigan oo kale oo aan sharci ahayn isla markaana matali karin baahda dhaqanka iyo warfaafinta Soomaaliya Maareeye ayaa ugu dambeyntii sheegay in dhawaan wasaaraddiisa ay bilaaban doonto dhismaha guddi qaran oo si hufan loo dhisay ayna ku midaysan yihiin dhammaan hay'adaha dawladda iyo kuwa bulshada doorka ku leh arrintan dhinaca kalena wararka inaga soo gaaraya xafiiska madaxtooyada Soomaaliya ayaa xaqiijinaya in madaxweyne Farmaajo kulan xasaasi ah kula yeeshay xarunta Xalane xubno ka socda beesha caalamka shirka lama sheegan xilliga uu dhacay iyadoo saaxiibada Soomaaliya ay ahaayeen kuwa madaxweynaha kala hadlay arrimaha doorashooyinka amniga guud siyaasadda iyo sida loo heli karo wada shaqeyn muxaafad iyo mucaarad intaba James Swan iyo Daniel Yamamoto ayaa waxay ahaayeen kuwa ugu madaxa fiiqnaa kulanka ee beesha caalamka ka socday ee madaxweyne Farmaajo kulanka qarsoodiga la yeeshay waxayna beesha caalamka ku celceliyeen inay marnaba raali ka noqonayn in doorashada xilligeeda dib loogu dhigo taa bedelkeeda waxay sheegeen inay ku taageerayaan dawladda Soomaaliya qabsoomida doorasho qof iyo cod oo madaxtooyada sida ay rabto sida tahay madaxweyne Farmaajo ayaa ballan qaaday in doorashada xilligeeda ku dhacda ay kaga mahad celinayaan beesha caalamka sida ay u garab istaagsan yihiin Soomaaliya diiradda kulanka ayaa waxaa lagu saaray dagaalka al-shabaab dawladana inay la heshiiso maamul goboleedyada ka fikirka duwan iyo inay la timaado hanaan dadka oo dhan la isku wadi karo geeska kalena Faysal Cali Waraabe ayaa shaaciyay magaca maamulka iyo dowladda federaalka ay ka dhisayso gobolada Sool iyo Sanaaga gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID oo hore u sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay gudaha Somaliland ka wado dhismaha maamul goboleed cusub ayaa maanta shaaciyay magaca maamulkaasi Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in maamulkaasi cusub ee dowladda federaalka ka sameynaysa deegaanada Somaliland lagu magacaabo Maaqir State isla markaana ay ka hirgelinayso Sanaag Sool iyo Cayn Faysal Cali Waraabe ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay rabto inay kala jarto Somaliland oo ay gudaheeda ka sameyso maamulka madax banaan maamulkeeda gudoomiyaha xisbiga UCID ayaa ka dhawaajiyay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay maamul ka sameynayso Somaliland ayna u fududeynayso muranka ka taagan gudaheeda isagoona xusay in dowladda federaalka ay arintaasi u igmatay safiirka u fadhiya Ethiopia
cabdixakiin cami waxaana uu yiri nin la yiraahdo cami ayaa safiir looga dhigay Ethiopia waa madaxweyne ku-xigeenkii hore Puntland ninkan waxaa meesha loo geeyay inuu Somaliland qaso oo jarjaro shalay waxa uu la fadhiistay ninka Turkiga u qaabilsan wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya waxaana uu isku geeyay ninka la yiraahdo dhooba daareed waxaana markaa la wada wax la yiraahdo Maareeye State oo ah Sanaag Sool iyo Cayn taas ayaa hadda igad laga soo ansixinaya horeyna waxa uu casuumay ugaaska Samaroon ugaas Cabdirashiid Suldaan Saciid oo ah suldaanka Badhan iyo Fahad Yaasiin waxa uu intaasi ku daray waxaas ayaa inaga socda iyo Somaliland loo jarjaro sida Soomaaliya oo laga dhigo dowlad goboleedyo taasina way suurtagelaysaa haddaynan inagu beeneen waxaana wax inaga qarinaya muranka gudaheena dhinaca kalena xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa baaq nabadeed ka soo saartay colaad u dhaxaysa beelaha ku dagaalamaya qayb ka mid ah gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda ayaa lagu sheegay in dhawaan guddi ka qayb qaata daminta iyo xalgaarista colaadaasi iyo dirirta deegaanada Tawfiiq iyo Afbarwaaqo oo ka tirsan gobolka Mudug halkaas oo maleeshiya beeleed maalin ka hor ku dagaalamay iskaga dileen in ka badan 15 halka dhaawac uu intaasi ka badan yahay sidoo kale war ka soo baxay xukuumadda ayaa lagu sheegay in ciidamada isku dhafka ee ka howlgala qayb ka mid ah gobolka Mudug lagu amray in sida ugu dhaqsiyaha badan u gaaraan deegaanada lagu dagaalamay haddaba war saxaafadeedka ka soo baxaya waxa lagu sheegay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay aad ugu walaacsan tahay dirirta iyo colaadaha maalmihii la soo dhaafay kasoo cusboonaaday qayb ka mid ah gobolka Mudug kuwaas oo sababay dhimasho dhaawac iyo barakac xukuumadda waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadan inay si sharuud la'aan ah u joojiyaan kana dhowrsadaan waxyaabaha kicin kara colaad horle waxaa la amray sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamada isku dhafka loogu diro deegaanada ay xiisadu ka taagan tahay si ay u kala dambeyn u soo celiyaan sidoo kale waxaa deegaanada Tawfiiq iyo Afbarwaaqo tagi doona guddi ka socda xukuumadda kuwaas oo ka shaqeyn doona sidii xal waara loogu heli lahaa colaadda haddan ka taagan deegaanadaasi waxaa lagu boorinayaa qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay hormuud u yihiin odayaasha dhaqanka culimada dhalinyarada iyo haweenka inay kaalin mug leh ka qaataan dadaalada lagu raadinayo nabadda iyo dib u heshiisiinta garab istaagna loo muujiyo ciidamada isku dhafka shacabka iyo dowladda Soomaaliya waxay la tacaalayaan dhibaatada ka dhalatay masiibooyinka dabiiciga ee dalkeena ku dhiftay sida daraadeedna dadkeenu ma xamili karaan dhibaato kale oo qaarkeen ay gacmahooda ku sameeyaan xukuumadda waxay ugu baaqaysaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan beelaha walaalaha ee degan gobolka Mudug inay guddiga la magacaabayo kala shaqeeyaan ilaalinta nabadda iyo xasiloonida dalka oo asaas u ah guud ahaan horumarka shacabka Soomaaliyeed wali waxaa dhageysanaysaan wararka Soomaalida musharaxa madaxweynaha Galmudug Kamaal Guutaale ayaa dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ku kasbanaya kalsoonida shacabka Galmudug ka wada magaalada Cadaado ee xarunta maamulka Galmudug Kamaal Guutaale ayaa ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee u taagan xilka madaxweynaha Galmudug oo la filayo in dhawaan lagu qabto magaalada Dhuusamareeb ee xarunta rasmiga maamulkaasi waxaana wadaa qorshe uu ku kasbanaya kalsoonida shacabka ee qaar ka mid ah xildhibaanada la soo xulaya gaar ahaan kuwa degan deegaan doorashadooda ay tahay Cadaado beesha Cadaado ayaa waxay si aad ah u dhaliilsan yihiin hanaanka dhismo ee maamulka Galmudug iyo sida ay dowladda federaalka u wajahayso waxaana ay sheegeen inaysan raali ka ahayn waxa ka socda magaalada Dhuusamareeb musharax Kamaal Guutaale ayaa qayb ka ah musharaxiinta mucaaradka kana soo galay tartanka doorashada xisbiga wadajir ee hogaamiye Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kaas oo hadda dowladda federaalka si weyn ugu kacsan dhanka kale filla Soomaaliya ayaa dhankooda u hanqaltaagaya in doorashada uu ku soo baxo musharax iyagu hayin u ah isla markaana rabitaankooda ku shaqeeya musharax qoorqoor ayaa la rumaysan yahay inuu yahay musharaxa banaanka yaalo oo ay wadato dowladda federaalka kaas oo saameyn ku leh doorashada Galmudug siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa muuqaal uu soo duubay ku dhawaaqay inuu alla uga toobad keenay qaladkii ku jiray khudbadii uu ka jeediyay dalka Jarmalka ee dooda badan ka dhalatay waxa uu sheegay inuu alla weydiisanaya cafis isagana uu cafiyay culimadii ku xadgudubtay wuxuuna dhinaca kale weydiisanaya cafis cid walba oo wax ka tabanaysa isagoo ugu baaqay in doodii iyo falceliskii ka dhashay khudbadii uu ka jeediyay dalka Jarmalka uu ka jeediyay ay soo idlaato Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa baraha bulshada si aad ah looga hadalhayay maalmihii la soo dhaafay kadib markii hadal uu ka jeediyay uu ugu gafay xadiis
saxiix ah oo ka mid ah xadiisyada laga wariyay nabigeena naxariis in nabadgelyo boqorkiisa ha yeele. ugu dambeyntiina madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay warkii shalay ka soo yeeray ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed qadar kaas oo durba saameyn abuuray. warkii uu Mahdi Guuleed yiri ayaa ahaa sidan: waxaan soo jeedinayaa in 7 sano laga dhigo muddo xileedka xukuumadda hayn karto, taas oo ah mid wax badan lagu qaban karo. sanadka koowaad waxa uu ku soo dhamaanayaa in shaqada la isla qabsado, sanadka dambana waa olole doorasho, waxa soo haray waa 2 sano oo kaliya. haddaba oraahdaasi waxaa shakigii la qabay ay ku sii cuslaysay xisbiyada qaar ee dalka ka jira, iyadoo ay ku sheegeen mid ay dowladda ku doonayso waqti kordhin ay samaysato. madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku baaqay in il gaar ahaaneed loo yeesho damaca villa Soomaaliya ee ah inay rabaan in xukunka sii dheereystaan oo ay iska sii joogaan xafiiska doorasho oo aan la gelin. waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud xisbiyada dalka ka jira ka dalbaday inay ka dhiidhiyaan qorshaha ay madaxtooyada rabto ee xukunku way sii hayn. waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud xisbiyada dalka ka jira ka dalbaday inay ka dhiidhiyaan qorshaha ay madaxtooyada rabto ee xukunka sii hayntiisa. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga inta. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar, sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkan soo gelino. waana mahadsantihiin.